guurka iyo tirtirsiintiisu waa wax naftu iska jeceshayba marka hore oo iyadoo cunno lagu tirtirsiiyey wax cun haddii lagu idhaa ka war awal baad u heellanayd guurkuna waa sidoo kale laakiin dhaqanka qofka muslimka ah guriguu ka muuqdaa umamkuna jiritaanka ummadeedna waa guryo laysu geegeeyey guryuhu hadday degan yihiin oo xasiloon yihiin oo ilaahay cabsidiisa ay ku maran tahay ummadoo dhan baa xasilaysa guryuhu hadday karayaanna waxay u badan tahay inaan dadkuna degin sideedabana bini aadamku xuquuq kuma wada socdo xuquuqda waa wax adag haddii lagu yidhaahdo xaqayga halkaa dhig adna xaqiisa halkaa dhig laba qofoo bini aadami waa adagta laakiin bini aadamku wuxuu ku wada socdaa in lays ixtiraamo laysu tanaasulo oo lays dhammaystiro oo dadku ay isdhammaystiraan sida daraaddeed xuquuqda qur-aanka ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay inta badan waa xuquuq si mutlaqa u warramaysa oo wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilaahay leeyahy wacaashiruuhunna bilmacruuf haweenka waxa kula dhaqantaan baa ilaahay leeyahy macruuf wax curfiga ku fiican oo la garanayo sama kula dhaqma samahaasi wuu joogayaa xataa marka la kala tegaya baa ilaahay ku tilmaamay faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf baa la yidhi xataa hadday kala teg gaadho waa in macruuf lagu kala tagaa marka asalku waa in macruufkaa lagu wada joogaa ninka iyo gabadha xuquuqda ka dhaxaysa badh waa xuquuq maadiya xuquuq maadiya maalan sadaaq baa kugu waajibay nafaqaa kugu waajibtay sakan baa kugu waajibay iyada furaash baa ku waajibay waxaasoo dhami waa xuquuq maadiya waxna waa xuquuq ka gedisan maadada oo ah dhaqan iyo akhlaaq iyo bini aadamku siduu wada joogi karo bini aadamku wuxuu ku wada joogaa waa akhlaaqda markay dhalintu isguursanayso waxaan dhahaa qof waliba krem buu ismariyaa labeentiisu sheegaa intaada jecjocornimadaa waad qarsataa un soo maaha cid koru soo qaadoo tidhaahdaa iinahana waan leeyahay ma jirto nin waliba fariidnimadiisa iyo inuu ragga ka laga qaata yahay buu sheegaa habluhuna sidoo kale laakiin marka guriga la tago real life baa la galaa nolosha dhabtaa kumaa tahay markaasaa la ogaanaya soomaalidu maxay ku mahmaahi jirtay jid ma la martay jidiin ma la cuntay jabad ma la degtay bay yidhaahdaan waa weedhi cumar laga soo naqlin jiray qofka waxaad baran kartaa bay yidhaahdaan marka aada safar wada gashaan idan isku kiin xidhee wax idinka dhexeeyaan ama markaa jabad wada degtaan bay yidhaahdaan markaa isku degaan noqotaan dee qofka dumara isku degaan baa noqoteen qol yar baa u wada hoyateen saa daraaddeed xuquuq badan badan baa la ysku leeyahy ninkuna wacaashiruuhunna bilmacruuf baa la yidhi iyadana waxaa la yidhi walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruuf iyana inta lagu leeyahay in la midoo macruufa bay leedahay walilrijaali daraja baa markaa caashiruuhunna bilmacruuf baa la yidhi iyadana waxaa la yidhi walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruuf iyana inta lagu leeyahay in la midoo macruufa bay leedahay walilrijaali daraja baa markaa la tilmaamay ninku mid dheeraada buu leeyahay oo waa maxay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu aayaddaasi intaay tilmaamayso rijaalku waxa ay dheer yihiin gabadhee quri waxa weeyaan marka guriga la joogo inay qiwaamatulbeyt leeyihiin guriga maamulkiisa inay leeyihiin waxaan idhaahdaa idaaradda reer galbeed iyo sida wax loo maamulo aad bay ugu guulaysteen meel qura shirkad qura bay diideen idaaraddeedii shirkaddaasina way ka burburtay galbeed oo dhan galbeedka marka nimankan reer galbeed ee dee culuumul idaara inoo soo waariday ee waxaan la daraaseeyey tirada badan la keenay
هدي شركات هدي دولة هدي مؤسسات هدي سيستم إداري هدي أورجانيزيشن سيستم إداري هذا في عم بيلاقينه هيراركي له كلا كورية عندنا ما مشوا عندنا تحت كوتشرته ودبتنا لك على دمبيو ميل بيديدين لك على دمبيو وغوريا غورو كلا سرين ما لها بين هذا إنك يا قبل وسك سمين دبتنا هو بربرة شركات أن كلا سرين لها يعني ما صعطه وحشري كلام معها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحت المامي صدح قف هداتنا ما لعد لا شوكتان أمير ياش هذا سفر كشرتان أمير سمايسنا بقى بني آدم كهدو وذا النولي هيبة وين شرتا عد وحدارين يسا عد وحمامول يسا وين شرتا سناني ما شرتو لقى هاد لما يبني آدم لماذا ما كسي مني ها أدقى يا مدحوين بني آدم لماذا ما كسي منتين لكن سلطة لا يدراده والله إجمدي إنه سلطة دا سهيو قرية السلطة دي سوحي قعنته وشرتا نينك هذا السلطة تمادنا مامول هدو يمادنا محكة واجبة طاعة مامولان لا داعي مجرو دي اللي هذا الشركة ده نبى مامولا لكن شغالوك يالي ما يجي الشركة صعونيسا نغونيسا دي مامول يمادنا وإن طاعة تمادا سيدا وقيت بالقرآن كو حتى المام يا رجالكو إيجا قوامة البيت له مامولك قرية إيجا عليه دمر كنا مركا وحا كوركودا صارا طاعة إنا إلي مادان النبي يقول عليه الصلاة والسلام دان عيد فريين عيد سجوده قبل نور الله نكاغو سجود معناه هذا وحويان إن طاعة مطلقة وبالمعروف ولا تماده أيا نصارا هدي إنها لوايه إن نكون الرقم في عن قرية كل الرقمه والرقم في عن إنه حاجة العكتم بينه كان نقانا إنك ريرك بيل في عن سيا وحا في عن سيا وحين مودناينه ننفريد هي لكن ما دد وحا كفي عن رقم ككله وحلا لي وحي دينتو ينفرتي وحوه الرأي عدنا ودنوشين هدي نحريستي هدي عافستي هدي وحد شريعته ينفرتي أخلاقياته ماشي اللي قوم ممارسية ماشي اللي قوم دقنقلية وقرية مركا وحا هبون قفك مسلم كاهي إنو قرقي صدقا كاكو يشو احترام لبقفو احترام يعني نقضان لبقفو هذا الفيعن كودا هذا يعني نقضان لبقفو هدي وحسو شيغيان سمان قلعة إيا وقت أي سورة قلطة هاي إسو شيغيان إني هادان لبقفو كلا الدنبين لين هادان لبقفو إسقدرين إني هادان وحلالي وحاو قرآنكو إنوت المامي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنوت المامتي دقان أخلاقياته وحل الربا